danab oo ah kumaandooska Soomaaliya waxa ay leeyihiin tababar casri ah oo la mid ah tababarada caalamiga ah ay leeyihiin ciidamada caalamka. tababarada ciidanku ay qaataan waxay iskugu jiraan kuwa asaasi ah iyo tababaro casri ah. kuwan waa askar cusub oo dhawaan loo qoray ciidamada danab. waxay halkan ku qaadanayaan tababar. ku guuleysashada tababar ciidan ma ahan wax sahlan. waxay u baahan tahay adkaysi, xoog iyo dadaal badan. askartan cusub oo qaarkood toddobaadyo ka hor ku biiray danab waxay kacaan subaxii hore si ay u maraan layliska kala duwan ee maalintii oo dhan. Cabdifataax Cabdullaahi Ciise oo ah ku-xigeenka madaxa qaybta tababarada ee danab waxa uu sheegay in hanaanka tababarada ay danab askarteeda siiso uu ballaaran yahay, isla markaasina ay ciidanka ka caawiyaan in ay guulo gaaraan. hanaanka tababarada guutada 16aad ee kumaandooska danab ay qaataan waa mid la mid ah tababarada casriga ah ee sameeyaan ama ay bixiyaan dawladaha horumaray ama ciidamada gaarka ah ee la siiyo. waxaana ugu wacan inay helaan waa inay ka duwan yihiin ciidanka kale ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ay yihiin ciidan special force ah. taas ugu wacan inay helaan ciidamo tababaradaas casriga ah. Mahad Maxamed Xaashi, Liibaan Cumar Cismaan iyo Sahra Daahir Cabdullaahi markii aan la kulmay 2 toddobaad ka hor iyaga oo saf ugu jira in ay iska qoraan ciidanka danab xero ku taala saldhigga Bilidoogle, iyo maanta oo ay tababar qaadanayaan waxay xaqiijinayaan qaar ka mid ah yoolkoodii nolosha. hadda oo ay yihiin askar ka tirsan danab waxay dareemayaan in wax weyn uu iska bedelay sidii markii hore ay ahaayeen. maalintaas hore ciidanka waxaa u dhaxeeya farqi aad iyo aad u weyn, sababtoo ah marka hore waxaan ka imaaday shacabnimo, haddana waxaa ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan danab. waxay iga dhigan tahay farxad aad iyo aad u weyn, waana ku faraxsanaa weligay inaan ka mid noqdo ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danab, waana ku faanaya. waxyaabo badan ayaa iska bedelay waayo qof shacabaan ah hadirtaan waxaan ahay qof oo sida jimka kaleeto fahantay, baardiska kaleeto, sid aabka, bush aabka, waxyaabo badan ka faa'iiday. waxaan ka faa'iidayaa taatiko adkaysi badan, dulqaad, waxyaabo badan oo aad iyo aad u badan in jirkii aan dhisto kale. shalay waxaan ahaa qof shacab ah, maantana waxaa qof askari oo dadka dhan wada aqoonsan yihiin, lagu sharfaayo in askar aan ahay. waxaa jira waxyaabo si gaar ah loogu xusho askarta tababarka la siiyo sida da'da, aqoonta iyo shuruudo kale oo dhowr ah, kuwaasi oo askariga ku guuleysta kadib loo ogolaado in uu tababar qaato. askarta tababarka la siiyo ee guutada 16aad ee danab waxaa lagu xushaa sidii kuwii waxaa loo xushaa horta sidii kuwii hore loo xulan jiray, oo ay ka mid tahay qofka inuu yahay Soomaali ama wadanka uu dhashay, 2 qofka jir ahaan iyo maskax ahaanba inuu caafimaad qabo oo miirkiisu taam yahay, da'diisa inay u dhaxayso 18 ilaa 24, wato shahaadada dugsiga sare ama heerka koowaad ee jaamacadda, inuu ka madax banaan yahay ama uusan isticmaalinba waxyaabaha maanka dooriyo sida daroogada iyo jaadka oo ay ugu badan tahay aan ka ilaalino. tababarada casriga ah ay ciidamada helaan oo qaarkood ay ka caawiyaan saaxiibada caalamka waxay fududaysaa in ay helaan farsamooyin iyo xeelado ay kaga faa'iideysan karaan xilliyada ay ku jiraan howlgallada gaarka ah iyo kuwa lagu sugayo amniga.